سوى البود إنكرتد سوى البود لو هني سجدكتد last time وحاب إيمان دون تعي دروس وجو أما هكسونان إنكر دي قرابة إما إلي سنين ده ما السحرني ده ما ما هيسد ده سودال hospital تك the last time وحاب إيمان دون تعي لا هل كان هذا إيمان دون تعي هل كان أنا كوفديا قبل ما بان نقضي maxaad gablan ku noqotaan ku yiri waxay tiri gabadhan ana xasday gabdhahaygayna isla dhigan jireen iskuul dunidana waxa ii joogtay laba gabar laakiin hadda keligay baan ku ah waan xasday intaan daba taagnaay labadeeda gabdhood baan ku waayay oo dunida ifka ii joogtay intaan iyada ku mashquulsanaay on xasday on sixray oo darteed xataa sixir aan u bartay labadayda gabdhood ayaa ku macnaha ku waayay qisadan waxaan ka faa'iideynaa koow caqabada ama dhibaatada xasadnimada ay leedahay labo waxa fudud ee qofka lagu xasday ee basiidka ah ilmahayga iskuul isla dhigan jireen dadkii baa jeclaaday qodobka saddexaadna inay ishu xaq tahay طهور ما لقيناه طهور علينا بعد أيام الصعاب وتكفير وغفران ونور وطب والمتاعب في غيابه بحمد الله قد مر ابتلاء ثقيل كان من قطع العذاب وعانينا به الآلام لكن دعانا للرحيم بلا حجاب طهور ما لقيناه طهور علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. إله سبحانه وتعالى هيدن بركة خير بان الله يديسيه ولا ريال وحن إن شاء الله تعالى إذن لو ذاك يا قصة كم إذا قصوينك أن سوّدني سببتها قصوينك أن كلا وذاك وحكم إذا وحويه horta inaad ku cibr qaadataan qodobka labaad inaad ogaataan xasadkiina waayo qisadan jirta ee dhacday markaan kula wadaago waxa laga yaabaa mid la mid ah inaad horay ay kugu dhacdo oo laakiin aad u garan lahayd amaba in ay hadda ku haysato oo aad fahmi lahayd walaalayaal dadku badankood maanta waxa ay la daalaa waa cayn yani isha bini aadamka waxa laga yaabaa inaad adigu isleedahay maxaa la iga ileysanayaa hanti malihi maal malihi waxyaabo nooca aad ku madadaalinaysid laakiin waxaan kuu sheegayaa marada aad xiran tahay baa lagugu xasdaya oo waxaan arkay shakhsi oksijiinka neefta lagu dhajinayo sababtan ay ahayd xasad mashiintii la jiidayay oksijiinkana lagu dabasido dibadna laga keenay markii aan ruqyadu ku aqriyeen ka dhaxaleen kadibna sheegeen inay u xasdayaan awgiis qofkaas qof ragu ahaa sidoo u nooli waa neefta jiidanay hawadii u jiidanay bay ka manciyeen waxa laga yaabaa inay isleedahay xasadka ma sameyn karaa mar haddii isha bini aadamka qofka qabriga gelin karto oo ay sabab noqon karto diinteena inoo sheegtay nabigeena salawaatu rabbi salaam inoo sheegay de agseeda waxba kama aha oksijiin ay ku dhajiso qofka macnaha hawadii oo ay ka manciso tiiqad iyo ciriiri iyo xanuuno ay sababtana waxba lama aha agteeda way madishaaba okay maanta marka waxaan idin la wadaagayaa qisadan maalin ma aan saas u dheereen baan live soo galay live kaas waxaan ku aqrinayay gabar walaalada kamid ah quraanka Facebook live ayaan soo galay marka dambe muuqaalka waan ka saari doonaa Facebooka sababtan ooga saarayna waxa weeye waxa gabadha marka marada ku muuqanaysa gabadha muuqanaysa anigana inta badan waxaan u ilaaliyaa qofka sharaftiisa inaan u ilaaliyo gabadhan waxa weeye wajigeeda in la arko ama xataa jismiin in la arko oo waxaan inta badan diidaa
in gabadha ay xanuunsanayso waxa weeye ay dib isku daawato kadib in murug ay ka qaado ilaa qof ogal mooye in qiso arintiisa dadka ay ogaadaan xaaladaas way dad waxa jiro aan soo bandhigay laakiin waa dhif inaadir kuwaas oo ma dhaweyn waagaas qisadan marka kadib muuqaalka gabadhii waan ka saaray subhanallah xasadnimada meesha ay gaartay ku saabsantay waxay kale ku saabsan tahay waxa fudud ee qofka noloshiisa lagu xasday yani waa shay qariib walla yaabi doontaa walla fajici doontaa waxay ahayd gabar walaalada kamid ah ruqyadan ku aqrinayay qofkii muuqaalka arkan insha Allah ta'ala waxaan ka codsanayaa in la socdo maalinta live-ka la socdo inuu nala wadaago oo qaybta hoose commentiska Facebook maalintan ku jiray qisadan maalintan live-ka ku jiray hadii aad kamid tahay dadkii arkay gabadha quraankan ku waday muddo kadibna xaaladeeda marba marka ka sii dambeysay isku fureys waxay xaaladeedu ku bilaabatay inay quraanka diido inay qayliso inay oyso waxbana aysan ka hadlin waxa la soo maray in marka dambe wixii jirkeeda ku jira ay hadlaan waxay hadlaan ay daldalmaan anigana inta badan qisooyinka xaqiiqada markii loo dhaco ayaan idin soo bandhigay fakta hore iyo bilowga hore waxaasi waxba kama soo qaadaba salka iyo gunta markaan gaaran qisada soo bandhigaa oo ah yaani qofkan xaaladiisa meesha ugu dambeysay waxa sababay waxay ahayd gabadhaas quraanka maalin live aan ku jiraan aqrinayay way dhacday kadib gablamay hoogayay gablamayay ay ku bilaabatay gablamayay gablan baan noqday maxaad gablan ku noqotaan ku yiri waxay tiri gabadhan aan xasday gabdhahaygayna isla dhigan jireen iskuul dunidana waxa ii joogtay laba gabar laakiin hadda keligay baan ku ah subhanallah hadda keli ayaan ku ah waxay tiri waxaan ku xasday gabdhahayga maalin walba iiga waramayay dhahay heblaaye saasay noqotay heblaaye waa saa muallimiintii iyo dadkii oo dhan way jeclaadeen heblaaye yani gabadha markaa xanuunsanayso kadib waxaan go'aansaday tiri inaan isheeda ku dhibaateeyo waa hooyadii gabdhaha dhashay weeyo macnaha markaa wax ka dhaxlayo waxay tiri waxaan go'aansaday tiri inaan isheeda ku dhibaateeyo oo aan ku bedelo bedelka booska ay joogtay iyada meesha ay ka baxday gabdhahayga la jeclaado oo ay dadka jeclaadaan oo iskuulka laga jeclaado waan xasday intaan daba taagnaay labadeeda gabdhood baan ku waayay oo dunida ifka ii joogtay intaan iyada ku mashquulsanaay oo xasday oo sixray oo darteed xataa sixir aan u bartay labadeeda gabdhood ayaan ku macnaha ku waayay oo si ku weysay way waxay tiri bishii 9aad midna bishii 11aad oo hadda lagu jiro ayaan waayay waxay tiri bishii 9aad gabadh mid labada gabdhood maxaa say u dhinteen baan ku yiri waxay tiri midi waxay u dhimatay gaari baa jiiray halkaas ay nafta ku baxay oo hospital baa lama gaari gaarigii haybtiisana lama helin oo gaarigii lama garanayo hadii diya laga qaadi lahaay iyo hadii la xukmin lahaay hadii yani gaarigii haybtiisana lama helin gabadheedana waa la jiiray gaarigiina cid garanaysa ma laha oo meeshu ka baxsaday waa qodobka koobaad taasaasay ku dhimatay tan labaadna waxay tiri iyadoo madbaxa ku jirto yani kushiinka ama jikada saa u taqaanaa iyadoo madbaxa ku jirto ayuu wadnaha istaago way dhimatay guriga hadan ugu galay madbaxi aan galay gabadhiyo geeriitana la hawla wala quwwata illa billah waxaan qisadan ka faa'iideynaa adigu hadaa dadka ku mashquulshid oo xasadid oo mid wax ileysatan noqotid wallahi alladhi la ilaha ghayra ilmahaaga iyo dhashaada iyo ehelkaaga ay ka jaranta war ilaahay miyuusan dhihin wala yahiqu almakru sayyi'u illa bi ahli hagardaamadan iyo waxa aad dadka u maleegaysid cid kale ma dhibayso meel kalena ma aadaysi aday kugu laaban doontaa hooyadaas isha wax ku dhibaysay heerkaas waxa basiidka u xasdaysay gabadha ilaahay wuxuu qadaray gabadhii ay xasdaysana way nooshahay oo waa xay umurteedii howlaheedana iska wadataa haba saameysay isheede laakiin ilmaheedii ay weysay
قرآن كما كلا أخرين كلمة كلا كما صوبح أنا كائن قبل ما يجي وحن أسي جود قالين أن أقعده إن قصة نبتاعي وعيدتك ويسي قهنان قفك وحزد أنا ما أنت ضدك حزدني وقرابة أبرم عدة دون تد أم واحد دون أما ده أي دروس قرابة وكويا هاي وير ده أما سيد ضدك قاركود نبى واحد شيء نبى واحد رشاقه علاج لي دن وحيري وحبا ما عرفتي أنا وابا كبوت سنة هيبا ما هذا عيوا أنت بدن رقي مركي أغرنا إن قرابة أخريان رقي قرابة مركي قفكي دمر كان قرابة إن لقي إلى استي هل كان لوي ما ذي كذا أي قامنيسا وآمنات ما هانه محي ومدك لك هذا مشغول يسا يا كو يقانو قرابة هذه حكتة هذا كو تقانو يا كو أكسون وحالات هذا أكسون ومالك هذا أكسون وزوجات هذا أكسون ونولج هذا أكسون أقارب هذا سوى البود وإنكرتد سوى البود لو هني سجدكتد last time وحقوا إيمان دون تعي دروس وجو أما أكسونان إنكر دي قرابة إما إلى سنين ده ما سحرني ده ما ما هيسد ده سودال hospital تك the last time وحضور إيمان دونتها لا هل كان هذا إيمان دونتها هل كان أنا كوفديها وايو مركي اللي وجر هذا حالة هذا دكتورك وحبك قبل وايو بيرك لما مركع ما هذا يصيده وحضرات سنسا ولاد بدرات سنسا أنيجا أما مت إلى مت أحد دونتها وقرآن كسر waxaan ku sheegay intay goortahay lacagna aysan ka khasaarin dhibaatii mashaakilkan uusan kugu sii ziyaadin xagga rabbi u carro iscilaaji aniguna inta badan ma badhaabay iimaw dadku waxaan dhahaa qofka walaal iscilaaji hadaad youtube-kayga daawataan ruqyooyin iyo talooyin baa ka buuxa inta waxaan ugu talagalay dadku inay ogaadaan xanuunkooda meesha laga jiray iyo wuxuu yahay inay ogaadaan qisadan maxaan ka faa'iideynaa waxaan qisadan ka faa'iideynaa gabagabada iyo gunaanadka hadalkayga waxa weeye qisadan waxaan ka faa'iideynaa kow caqabada ama dhibaatada xasadnimada ay leedahay labo waxa fudud ee qofka lagu xasdeeyay ee basiidka ah ilmahayga iskuul isla dhigan jireen dadkii baa jeclaaday qodobka saddexaadna inay ishu xaq tahay qodobka afaraad saameynta isha ay leedahay oo ah gabadhaasi dhibaata iyo mashaakil iyo dhib badan bay ku suganta oo markaana ku sugneed hadda sidii hore inaysan ahayn marka ishu wax way dhibtaa ishan si fudud qofku ku xasadaa qof wax xasday hadaad aragtidne mu'min ma ahani ka fogow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته